baxay xarunta caafimaadka. Waxa la soo siiyay daaweyn. Sidoo kale kalkaalisada waxay isiisay kaniin laakiin kama qaadan maxaa yeelay ma xanuunsanay aniga. Waan ogahay inaad cuntid miraha iyo sida qudaarta waa inaad qaadataa daawooyinka saysa kuugu dhicin dhiig la'aan. Aad ayaan u fiicanahay Amino kaniiniga sadaan qaata waxaan ka qaadayaa xanuun haddii aan xanuunsanayn maxaan u qaadanayaa kaniiniga. Ku laabo mar labaad kalkaalisada. Cali miyaad israacdeen? Haa wuxuuna u sheegay inaan ahay caajisley. geysmadaad geysay natiijadeedii waa midaas. Wuxuuna igu dhiirigeliyay inaan qaato daawooyinka iyo qudaarta. ماركس عيارت ريا ماركس سكول كاسو خطر ماركس كور وقرني يا علي هل كان انت كراس دغتو ددوينها ما لعك قالتي انا واكو عاولهاي maxaa adiga soo lacag bixin maysid anuu kuraastaan keenay lacag ma bixinay cabdiyow waa markaa koowaad aad keento qorshaha wanaagsan oo kale taasi waa qorshihiisii ugu dambeeyay uu ugu talagalay inuu tirada nada ku yareeyo uuna u doorbiday ilmaha yar aamina ayaan u raacayaa rugta caafimaadka adiga ma aad rugta caafimaadka dabcan sideen u aadin cali naga dhaaf dadkan inoo wad sheekada kalkaalisada ayaa waxay ii sheegtay dumarka ilmaha isku dhow dhala inay dhimasho qad u saarayeen amaba ay dhintaan abadayda xaas mid kasta waxay dhashay lix cunug walina ma dhiban dabcan waa ognahay dhibaatooyinka soo gaari kara waayahan dambe haddii aan ragnahay howlaha ciyaalka dumarka ayaa faraha uga qaaday taasina waa qalad baan filayaa waxaan ku raacsanahay inaan nahay madaxda qoysaskeena waa inaan fahanaa arrinkan waxaan aaminsanahay inay xanuunsan tahay Faadumo maxaa kugu dhaliyay inaad sidaa u fakarto miyaadan ogaan inay maalin walba kor jiifto saliga miyaadan ogaan inay reerkeedii weyday waan ogahay waana ka xumahay ma fiirsay lugaheeda iyo gacmaha si quman ayaan u arkaa maxaa ku dhacay way barartay waxay ka cabanaysaa indha madoobaad iyo calool xanuun iyo madaxa xanuun maxay la lulanaysaa sida geed dabeel hayso waxay la lulanaysaa cudur oo dhiikar la dhahay qabta dhiiga aad oo kacsan hadii la qali waayo way isku dhiman kartaa teeda kale cudurkaneet waa cudur la dhahay eclampsia oo qaas ku naagaha uureyda marka saas daraadeed waa in la qalaa balse kan ma cunugeeda koowaad maxaa loo qalayaa horta may aadi jirtay qayb uureyda maya haday uureyda aad lahayd hadda fiiri waxaan kuma dhaceen waa la baari lahaa mar walba xaaladeed waa la socon lahaa يا يدو هذا صار فسمانا في سنين عبدي وعلي علي سوق ولا كان علي عبدي وعلي دكان كوجراي كسوق علي وين اوعد قالد وين لهلا maxaa uga baahanay wicitaankiisa balse waa muhiim in la helo qaalid way dhimanaysaa haddana inta loo operation waayahay aan wacbal telefoonka halo Khalid waxaan joognaa isbitaalka Faadumo ayaa la rabaa in la qalo ogolaanshaha si loo badbaadiyo iyadii cunugeeda qalin maya dhaqaatiirtu waxaad u sheegtaa in gabadha jirkeeda aan la jarjarin waxa wanaagsan in hadda la qalo hadii kale way dhiman kartaa maya aniga si degdeg kuugu imaanaya waa daahi kartaa waqtigana uu si dhamaanaya maya wax qalin la yiraahdo negative waa maya
arrintan qaladka uu sameeyay arrin loo dulqaadan kara maaha qalliinkii wuu diiday waxa maskaxda geli kara oo loo dulqaadan kara ma aha maskaxdan inuu ku qasban yahay sababtoo ah muu joogin asaga meesha ya maskax la yaab la waa kaas fiir doqonnimadiisa fiir hadda soo socda وتاسي كأرض سوق أو لغ سولو ما كروين haddaad mar hore imaan lahayd waa la qali lahaa sabab way dhimatay hadda meeqa loo wacay meeqa loola hadlay meeqa loo yeeray meeqa la yidhi yani maartay kaalayo qal markaasuu hadda iska imanaya maxay hadda calaacal kuu tahay isagaa badilay muxuu la aamusayaa waxaan ogaaday kaniiniyada ay siisay inay quwad ii yeelaan ها daawadaas waa looga tirgalay macnaha inaad ku raysato cudurkaas ayuu daaweeyaa dhiigkarka asoo waan aaminay dhiigga la iska cabira inay iga cabirtidaan rabaa waay waa laga cabiraa markaan waxaan rabnaa inay kaadidan laga cabiro taasi hor looma sameynin waa la suubi laakiin waa xaqiijin macnaha haddana mar kale laga cabiri oo آمنه مهدام ديك كعبري وحن أركي ديك هذا إنه كرو كحسن هاي معناها وكرو كحسن هاي أنا أركي مياي سهل ديكرك أودي ما تفاضله ها إلا صحبة ما يسداوي لا ذاك ديكرك الدواء كسينا مركز أساس أقول يساو حبها كعب سنين ديكرك الدواء ليه لا وصفة عنه لك آمن استاذ اسبتالك وعلى الرحمة ويديك بحيسا كاسي معقول قلبها آمن ولا جيسو داوة صفة عنه لك تاريخنا هو خبتي يقصو نقو مركان ساسها نوعها إن شاء الله سولو سويته صور دقائق هذيك ما صوت maxaa dhacay waxaa dhacay gabadha kafkeeda ayaa yaraa ogolaashada qalliinkan dhaqsi maan helin saas daraadeed daahaas ayaa cunuga dilay sabab haddaan qali lahayn cunug waan ka soo saari lahayn waana badbaadin lahayn maxaad u sameyn weysa mar hore raxma ninkeeda ayaa diiday waqti badan baynu u qaadatay inaan la hadalno laakiin markuu ogolaaday waqtiga wuu dhacay marka aminay mindi isku tagtay ahayd raxmu waan joogaay waan ka xumaay cunuga kaa dhintay sidee buu ku dhiman karaa cunuga noogu horreeya waay haddaan qali lahayn cunuga waan kuu badbaadin lahayn sidee gabadha kafkeeda ayaa yar moogtahay cunugana intuu soo bixi lahaa uu ku dhex rafaadsanaa meeshaas iyo qalliinka aa dhaqsigiina saxiixin ayaa cunuga dilay sidee buu ku yaryaa haddaan fiiriyo feelkeeda gabadhanayto 16 sano jirtaa marka qof 16 sano jirana kafkiisa weli muusan weynaanin ma fahamtay qofku waxaa la rabaa 20 sano iyo ka badan inuu cunug uur ku qaado marka qof yar oo 16 sano ah oo uur qaade kafkeedu wuu yar yahay teeda kale waxaa lagu sameeyay gurnin fircooni oo idila hoos ka tolon marka saas daraadeed cunuga muu soo mari karin sidee buu ku yaryaa naagaha yaryar inta badan si nabad kuma dhalaan alla maxaa u ogolaan waysa qalliinka allah haddaan ogolaan lahaa aad ugu faraxsanahay hadalka ku hadashay maxaa waxaan ugu faraxsanahay
raxmo markii ay foolanayso intaas ay dhib maraysa meesha kaadida ayaa dhib ay u geysatay oo hadda duleel yaryar sameynayso laakiin wali wax waan ka qaban karnaa intay wali isku go gaarin oo isku go muxuu yahay isku go waxaa la dhahaa duleel ay sameeyaan meesha kaadida oo mar walba kaadida qofka ka qulqulayso oo jidka ta markay marayso kaadida ay ka soo urayso hadda raxmadeyda wax ma laga qaban karaa abreeshin yar bay u baahan tahay waa idin fasaxay waa idin ogolaaday inaad qashaan waa mahadsan tahay wax walba u sameeynaynaa الله هدان ogaan lahaa markii hore ayaan fasaxi lahaa raxmo iyo cunugeeda waa la badbaadin lahaa maanta ka waran xaaladeeda dhiigga amina wallahi sidii runtii markaan kuu sheego dhiiggaada maanta caadi waaye dhiigkar ma laha daawadii aan ku siinay macnaha waxaan u arkaa inay si fiican kugu shaqaysay kaniiniyada maalin walba aniga afka xoog uga siiyo wallahi waxa ajaa'ib aad tuubisay markaan hadda ka dambe uurka ayaan barwaarinaynaa wixii hadda ka dambeeya macnaha dhiigkarka wuu soo dhacay waana okay inay isbitaal ku dhashaado soo waa inaan qorsheeyaa 2 wiil ka hor meeshaan ku dhali lahaa waxaan u malaynaa aamino inaad ma aragtay isu diyaariseen isbitaalka dhalmada waqtigaad aadi uma baahnin cabdi shaqaysa maadaama aan tagayn isbitaalka maalin ka hor maadaama aad hadda gaari hatta iska dhaafaysiin baabuurkiisa wallahi waa wax la yaab leh oo macnaha hortiisa aad tagaysiin idinka naftiina waa wax la yaab leh oo ku farxo